maamulka Jubbaland ayaa qaaday tilaabo kale oo xasaasi ah oo kaga sii daraysa xiisadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Axmed Madoobe kadib markii arintan uu soo farageliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Axmed Madoobe ayaa la ogaaday sidoo kale inuu ka biyadiidan yahay qorshe iyo sidoo kale safar mas'uuliyiin ka tirsan mucaaradkiisa iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Haddaba muxuu yahay khilaafka hoose aan la ogeyn ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ka dhex socda maxaase ka jira tilaabooyin inuu qaado Xamse Cabdi Barre oo xilka isaga casilayo. wararkii ugu dambeeyay shirarka ka socda Muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii ku soo gaar si share gareer nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran mar walbana hela xogaha aan halkan soo galino. maamulka Jubbaland ayaa qaaday tilaabo kale oo kaga sii daraysa xiisadda kala dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya xilli gudaha magaalada Kismaayo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed aan caadi ahayn kadib markii Jubbaland ay sheegtay in xiriirka wada shaqeyneed ay u jartay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale la mamnuucay in mas'uuliyiinta mucaaradka Axmed Madoobe ka soo horjeeda ay tagi karaan magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubbaland maadaama ay jiraan xilligan xiisad adag oo labada dhinac dhexdooda ka taagan. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xubno markaa xafiiskiisa ka tirsan deegaan ahaan Jubbaland ayaa sameynaya isku day qorshe ay ku doonayaan magaalada Kismaayo inay ku tagaan balse arintaasi waxaa la ogaaday inuu ka biyadiiday hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo cilaamiyay inuu qaban doono doorasho dadban taasi oo magaalada Kismaayo ka dhacaysa. doorashadan ayaana la saadaalinaya mar kale Axmed Madoobe in dib loogu dooran karo maadaama cadaadis weyn ay wajahayaan musharaxiinta mucaaradka ee asaga loolanka adag kula jira. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhanka kale soo saartay go'aano aad xasaasi ah taasi oo ay ku sheegtay gabi ahaan inaysan ku aqoonsaneen guddiga doorashooyinka ee dhawaan Axmed Madoobe uu magacaabay sidoo kalena wax doorasho ay tilmaantay magaalada Kismaayo inaan lagu qaban karin. balse arinta isweydiinta mudan ayaa ah dadkana ay markaasi aad shaki kaga qabaan maxay dawladda federaalka Soomaaliya ka qaban kartaa xaaladda Kismaayo ka taagan miyaysa macquul tahay in Axmed Madoobe laga hor istaago in doorasho dadban uu ku qabto magaalada Kismaayo. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii arintan ay soo shacbaxday lana ogaaday Axmed Madoobe guddigu uu magacaabay in golaha wakiilada Jubbaland ay u meelmariyeen waxay si cad u sheegtay guddigaas inaysan aqoonsaneen sidoo kalena wax doorasho aan lagu qaban karin magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka Jubbaland. wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaana sheegay dhawaan dawladdu inay qaadi doonto tilaabooyin waaweyn oo xasaasi ah kuwaas oo looga hortagayo go'aanada Axmed Madoobe uu qaatay ee shirarka ka socda magaalada Kismaayo. khilaafkan oo markaas ka soo shacbaxay shirka golaha wada tashiga qaranka ee horaantii bishii Oktoobar kadib markii Axmed Madoobe uu isaga baxay la iskuna fahmi waayay in arrimaha la xiriira doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacda ayaa ka sii daray kadib markii Axmed Madoobe uu magacaabay ku dhawaad 7 xubnood oo lagu sheegay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha maamulkaasi dhawaanna ay meel mariyeen golaha wakiilada Jubbaland kuwaasi oo Axmed Madoobe ku aragtay dhammaanba xubnaha siyaasiyiinta iyo musharaxiinta deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa la ogaaday in dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ay la safteen gaar ahaan ay garab siinayaan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si weyn kaga careysan waxa ka socda magaalada Kismaayo iyo tilaabooyinka uu qaadaya Axmed Madoobe kuwaasi oo xiisadda taagan xilligan kaga sii daraya. hase yeeshee waxa saacado gudahood markaas ku gacan sayray tilaabada uu qaadayo ee safarka uu ku tagay Xamse Cabdi Barre magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland kaasi oo la ogaaday in sharci darro uu ku tilmaamay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay soo farageliyaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashada lagu qabanayo ee xilligan gudaha deegaanada Jubbaland ka socda. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale 24 saac ee la soo dhaafay wuxuu kulamo la qaatay xubno ajaanib ah kuwaas oo si qarsoodi ugu tagay magaalada Kismaayo isla markaana la kulmay asoo iyagoo kala hadlay waxyaabo qusaya markaasi xalka doorashada Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya khilaafka ka dhaxaya ayadoo dawladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba loo yahay inay ka biyadiiday qorshahan Xamse Cabdi Barre oo deegaanada Jubbaland ka soo jeedana uu diyaarinayo qorshe uu doonayo markaan in gabi ahaanba mustaqbalka iyo rajada siyaasadeed Axmed Madoobe uu ku soo afjaro ayaa mar kale xiisaddu meesha ugu sareysay gaartay wixii ku soo garay doorashada Jubbaland iyo tilaabooyinka Axmed Madoobe uu qaaday dagaalka xilligan Xamse Cabdi Barre kala dhaxaya. wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan.